Ururka Taliban ayaa gacanta ku dhigay caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul, kadib markii ay gobollo aad u badan oo dalka ka mid ah kusoo qabsadeen awood dagaal, kuwaas oo la dagaalamayay ciidamada dalka Afghanistan ee qalabka sida iyo isbahaysigii uu Mareykanku hogaaminayay. Sanadkan 2020 ayaa waxa uu go'aan ku gaadhay dalka Mareykanku in uu ka baxo dalka Afghanistan. Bixidii dalka Afghanistan uu ka baxay Mareykankuna waxay u horseeday ururka Taliban in ay gacanta ku dhigaan gobollo badan oo hore aanay u haysan. Ugu dambeyntii waxa ay gacanta ku dhigeen caasimadda dalka ee Kabul. Dadka reer Afghanistan ayaa la arkayay iyagoo argagaxsan oo ku yaacaya garoonka diyaaradaha ee ku yaala caasimadda Kabul. Diyaaradaha Mareykanka ayaa waxa ay daabulayeen dad shacab ah kuwaas oo ku sheegay in ay yihiin dadkii la shaqeynayay diblomaasiyiinta Mareykanka ee safaaradda Kabul ka shaqeynayay. Waxaa jira dad badan oo ka cabsi qaba in ay xoogagga Taliban ay aargoosi ka sameystaan dadkii la shaqeynayay isbahaysigii uu Mareykanku hogaaminayay.